maanta waxaan halkan nagu hayaa qiso cajiib ah dhex martay nin iyo xaaskiisa. ninka iyo xaaskiisa ayaa isqaba muddo dheer kadib ayaa waxaa dhacday inay wada tagaan dhakhtarka. ninka iyo xaaskiisa dhakhtarkii ayaa ku yidhi baaritaan kadib labadiina wax ubada kala heli maysaan. xaaskiisa ayaa ku tiri odaygeedii miyaan anigu hooyo noqonayn. ninka ayaa ku sabriisiiyey abid waan isqabi doonaa, waan isqabaynaa, kala tegi mayno, mar walba waxaan ahaan doonaa xaggaaga. ninkii ayaa ku qanciyay xaaskiisa in ay wada noolaadaan abid sina joogteeyaan si ay ubad ku helaan. balse ninkii ballanta qaaday ayaa muddo dheer kadib gabadhay isla shaqaynayeen iska barteen goobtiisa shaqada. balse gabadhii ay iska wada shaqaynayeen goobta shaqada ayaa wuxuu u qaaday jacayl xaddaafa, isagoona ku fikiray inuu gabadhiiba guursado. gabadhii ayaa ka ogolaatay arrinkii uu soo bandhigay ninkaasi, balse wuxuu ilaaway ballan inuu ka qaaday xaaskiisii hore, uuna ugu ballan qaaday inuuna guursan doonin xaas labaad. muddo dheer kadib si uu u qarqarinayay xaaskiisii koowaad uu ugu qarinayay inuu guursaday xaas. maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacday iyadoo ay wada joogaan xaaskiisii koowaad inay timaaddo xaaskiisii labaad, kuna tidhi xabiibi dhakhtarka ayaan ka socdaa, uur ayaan kuu leeyahay. uu isku naxay ninkii, balse naagtii uu koowaad u qabay ayaa waxay ku tidhi sidee ay ku dhacday arrinkani. ninka ayaa ku qanciyey waa been arrinkani, anigu adiga mooye xaaska lama qabi. balse naagtii koowaad ayaa si degdega aqalka intay u gashay ee soo wada qaadatay dharkeedii, kuna tidhi ballantii adiga qaaday ma sidan ayay noqotay. bal maxay sidan ku dhacday? waxaan jeclaystay ayuu ku yidhi mar un inaan aabbo noqdo. balse iyada ayaa ku tidhi miyaan aniguna jeclaysan mar un inaan hooyo noqdo. dood kadib ayaa waxaa dhacday in ay ku kala tagaan labadoodii. ninkii ayaa xaaskiisii koowaad aqalka soo geliyey, kuna yidhi maxaad sidan u samaysay? waan qarin kari waayey farxad darteed, sidaa ayaa ay ku dhacday. balse waa uu iska ilaabay ninkii in uu xaaskiisii hore uu ballan ka qaaday. sidii ayay labadoodii aqal ku wada galeen. muddo dheer kadib waxaa dhashay bilooyin kadib ayaa waxaa dhashay xaaskiisii dambe uu guursaday. isagoo goobtiisa shaqada jooga ayaa waxaa lagu soo wargeliyey in loo dhalay. ayaa si degdeg ayuu dhakhtarkii u yimiday. markii uu dhakhtarka yimid ayaa waxaa lagu yidhi inankan aabbihiisa ma adiga? haa. baaritaan DNA-ga kadib ayaa waxaa dhacday in dhakhtarkii uu ku wargeliyey uu ku yidhi inankan adiga maadan dhalin. ninkii ayaa naxdin darteed halkii suuxdin kadib markii uu soo baraarugay ayuu ku yidhi xaaskiisii sidee ay arrinkan ku dhacday? waxay ku tidhi odaygaygii hore ayaa dhalay, adigu maadan dhalin. ninkii ayaa naxdin darteed maxaad iga qarisay inaad oday soo martay? wuxuu ku tidhi kumaanan sheegi karin, jacayl ayaa i waday. marka ayuu ku yidhi naxdin darteed ninkii halkan ayaad igaga furan tahay. halkii ayuu ku furay gabadhii. muddo dheer kadib ayaa isagoo dariiqa socda wuxuu arkay xaaskiisii hore ee odaygeeda wada socdaan uurna leh. marka ayay ku tidhi ii waran, waan fiicanahay ayuu ku yidhi. balse waxay ku tidhi iga waran carruurtaadii iyo xaaskaagii. marka ayuu ku yidhi arrinkii fashil ayuu ku soo dhammaaday, iga raali noqo, khalad ayaan galay. haddaba ogow nafsi lama galo, nafsiga iska ilaali, ballanna ha qaadin adigoonan oofin karin ballantaasi. balse arrinkii iyo qisadii aan ii soo waday anigoo ah Aweys Xuseen Cusmaan, halkaad kala socotayne barteena YouTube-ka Aweys Bro. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, sidoo kale shiina share garee fiidiyoyaashaan soo tabino. wasalaamu calaykum.